أنك همدايو أنك مإلاو شعيرو توغن مايو أولي لعب إن مايو أيرا وير المدايو اللي هي مسمايو اللي كوكي سمديدو ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye waxaa habeennimadii xalay toole ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya fanaankii weynaa jilaagii caanka ahaa kabanistihii gacanta macaanaa mulaxamkii naaxiyada qurxoona iyo waliba hawlkii codka tolmoona ee Cabdi Tahliil Warsame Cabdi Tahliil waxa uu xaalad caafimaad u yaalay 20kii sano aynu ka soo gudubnay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaanu kamid ahaa fanaaniinta aan ka bixin dalka kadib burburkii dawladii dhexe ee dalka Soomaaliya haddii aynu dib u milicsano taariikh nololeedkii iyo waayihii faneed ee Cabdi Tahliil Warsame Cabdi Tahliil waxa uu ku dhashay deegaanka Wardheer oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya sanadkii 1950 waxa uu waxbarashadiisii asaasiga ahayd ku qaatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hase yeeshee sanadkii 1968 ayuu fankiisa ka bilaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya taasi oo heestii koowaad u dhiibay Awaan Sulub Cumar Axmed isla sanadkii xigay ee 1969 ayuu Cabdi Tahliil bilaabay barashada iyo tumidda kabanka taasi oo u dhiibay Awaan Axmed Salmaan Bidde heestii caanka baxday ee Onkod taasi oo kamid ah heesaha ugu caansan ee uu qaado Cabdi Tahliil Warsame Cabdi Tahliil waxa uu kamid ahaa fanaaniinta ugu codka luxdan guud ahaanba fanaaniinta Soomaaliyeed waxaanu kamid ahaa fanaaniinta ay codkooda iyo muusigooda isdhinac socdaan waxaanu ahaa fanaan ay fahmayaan cid kasta oo dhageysataaba kelmad kasta oo afkiisa ka soo baxda Cabdi Tahliil heesaha lagu xusuusan doono waxaa kamid ah heesta Ugaaso Saaqa Xodaamo Onkod iyo kuwa kale oo fara badan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Cabdi Tahliil waxa uu ifka uga tagay 42 qof oo kamid ah caa'iladiisa waxaanu xaalad caafimaad u yaalay 20kii sano aynu ka soo gudubnay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya taasi oo sanadkii 2000 uu ku haleelay xanuunka faaliga ama shalalku